الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها ضمان ميلاد جوكتان بوائد سلامي ومر لباد إيا كتاب عصب بإذن الله تبارك وتعالى ومن كتب الإمام ابن القيم رحمه الله ولنا وحان دحد وجرنا كتبتي ابن القيم كتاب كان أن هذا بالله بينه وحو وقد سيئة كتبتي كله وحال هذا كان حكم وروائع العلام ابن القيم نظما وتصنيفا وحكم xikmad iyo faa-iidooyin badan oo aada u wanaagsan oo laga soo dhex ururiyey kutubta sheekha ibnulqayim raximahullah. marka kitaab gooni a ma aha, laakiin waa xikam ama xikmadi iyo faa-iidooyin lagu qiyaasay taqriiban 200 oo faa-iido oo kutub tiro badan oo sheekhu leeyaha laga keenay. fawaa-idda marka kitaabkan uga duwan yahay kuwii hore waxaa ka mid a waa marka koowaad kutub badan oo sheekhu leeyahay oo aynan inoo suuro gelin ama laga yaababa inaadan qaarkood arkinba ama maqlin ayaan insha allahu yaa halkan faa-iidooyinkoodii lagugu keeni doonaa haddii alla idmo. waxaa ka mid a waxyaabaha insha allahu tacaala fawaa-idda kitaabkan uu goonida la yahayna inaan sheegi doono kitaab walba iyo faa-iidada laga soo qaaday si gooni ah, si aada u ogaato kitaabkaas sheekhu qoray haddii ilaahay subxaanahu watacaala cimri kuu daayo ama ay kuu suuro gashaba inaad markaad u bogto faa-iidada aada raadsato kitaabka isaga biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. haddaba ibnulqayim raximahullah isaguna wuxuu yahay sidaan horeyba usoo sheegnay shakhsiyaadka ee soo maray runtii dadka muslimiinta oo fiqhiga iyo culuumta qeybaheeda kala duwan ee aada iyo aada ugu xeel dheeraa. waxyaabaha gooni uu la ahaana ay ka mid tahay cilmigiisa badan oo waasic ahaa, caqligiisa runtii oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaystay, cabqariya waxa la yidhaahdo oo ah inuu aada iyo aada qof faahima oo xeel dheer uu u ahaa sida uu wax u fahmayo, kelimaadkiisa iyo kutubtiisaba jaanib al-iimaani inay aada u wada rakisayeen iyo xagga quluubta. inuu ahaa dadka saalixiinta culimada ayuu ka mid ahaa dadka wanaagsan oo culimada lagu yaqaano iyo fuqahada ruux ahaan iyo naf ahaan iyo qaabka uu dadka u fahamsiiyaba in ilaahay subxaanahu watacaala uu barakeeyey cilmigiisii iyo maaragtay duruustiisiina alle uu barakeeyey. oo maa min sheekh baa la yidhahdaa inta badan aada ku arkayso dadka muslimiinta ibnulqayim iyo sheekhiisii ibnu taymiya in intaba aada iyo aada u sheegidoodu ay ugu badan tahay iyo daliil ahaan in loo soo qaato. sheekhan alcalaama shamsudiin ibnulqayim aljawsiya oon horey usoo sheegnay nisbada iyo waxa looga jeedo ibnuqayim kelimada waxa loogu sameeyey aabihii inuu ahaa madaraso ku taala dalka suuriya, inuu naadir ka ahaa ama mas-uul uu ka ahaa. wuxuu dhashay sheekhu horeyba sidaynu u sheegnay qarniga hijriga ah, taariikhda hijrada 691 markii ay ahayd, wuxuuna geeriyooday 751 markay taariikhda hijriga ahayd. marka qarnigaas ee 8aad buu sheekhu galay uu dhexda uga jiray oo taariikhda hijriga. ibnu rajab raximahullah ayaa sheekha wuxuu ku tilmaamay maruu tilmaanka bixinayay inuu ahaa qof aada u cibaado badan, inuu qof aada u salaad badan uu ahaa, inuu qof aada dikriga ugu badan ahaa, inuu ahaa qof maxabada ilaahay ay ku badan tahay, qof toobadkeenkiisa iyo istikfaartiisu aada u badan tahay, qof allah subxaanahu watacaala ku xidhnaantiisu ay badan tahay, mar walba uu ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa uu ku dhex jiri jiray, inta badan oo dhan uu ku jiray, cilmigiisu inuu badnaa, qur-aanka macaanidiisa
inta la ogyahay wuxuu yiri dadka ugu badan ayuu ka mid ahaa. kutub buuna leeyahay tafsiirka ka mid aho qur-aanka fasirta. alxaafid ayaa isaguna wuxuu ku tilmaamay, wuxuu yiri wuxuu ahaa qof cilmigiisu badan yahay, garanaya madaahibta iyo qeybaha culimmadu ay ku kala tegsan yihiinna aada u yaqaana. xubbiga ama jacaylka sheekhiisa ibnu taymiyana aada buu runtii ugu badnaa, aqwaashiisana iyo cilmi wuu u gargaari jiray, inta badanna kamuusan dhex bixi jirin waxyaabaha ibnu taymiya raximahullah iyo qaabka manhajkiisa ayuu isaguna uu ku socon jiray. haddaba sheekhaas insha allahu tacaala kitaabkan lasoo ururiyey oo ah xikam laga soo guray kutubtiisa dhexdeeda ayaynu daraasayn doonaa haddii alla idmo. waxaan rabaa inaan idin sheego, haddii alla idmo waxaan isku dayeynaa inaan dadka cashirada ku xidhan aan hal meel isagu geyno haddii alla idmo, laakiin uu noqdo meel aan insha allahu tacaala cashirka uun soo gelinayno oo wax kale aan loo adeegsanaynin, oo ka xidhan dee dadka oo dhan ayna wax ku soo gelin karin cajaladi iyo waxyaabo kale iyo aan lagu tuuri karin, saan dadka u daalin. waayo guruubyada iyo waxyaabaha noocaasa ummadda wuu dhibaayo, waxaadan ku talagelin oo badan baad arkaysaa. marka inuu noqdo uun cashir caadi ah oo kuu socda, taana waynu isku dayi doonaa haddii alla idmo, ilaahay subxana wa tacaala noo fudaydiyo. muhiimada kale oon raba inaan iyadan kugu baraarujiyo, hore inaan idinku sheegay kitaabkan iyo kutubtan aan aqrinayno qasadkeena iyo hadafkeenu waa inaan ilaahay agtiisa wax kaga helo, waa in ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka uu inoogu siyaadiyo, waa in ilaahay subxaanahu watacaala inooga dhigo camal aan rabbi la hortagno, waa in ilaahay subxaanahu watacaala inooga dhigo khaalisan liwajhi, ilaahay aan ku barino. haddaba waxaa rabaa inaan sheego, dad badan waxaa laga yaabaa waa dad culimo abaa dadka ka buuxa oo ku jira oo cashirkani gaadho. muhiimaddu waxaa weeye inaad qof kale usii gudbiso insha allahu tacaala, adiguna waxaad noqonaysaa dadka ajirka ka helaya qeyb ka mida ayaad noqonaysaa. marka muhiimaddu waa inaad sii gudbisaan, qof walbo intaad awooddo usii gudbi insha allahu tacaala. haddana waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala fawaa'iddii aan sheegnay haddii alla idmo. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.